madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa saaka subaxnimadii kormeeray goobaha sahminta shidaalka ee deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer waxaanu madaxweynuhu goobahaasi isu taagay mid waxaanu indheeyay sida ay u socoto shaqadaasi waxaana qaabka ay shaqadu u socoto ugu warbixiyay madaxweynaha wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale wasaarar gudan lamankaanu soo dhaafnay waxaynu imika joognaa laynka halkaas ka soo bilaabmay saraar barigu ka soo bilaabmay uu soo dhaafay xood ilaa balli jiilalkeenu soo dhaafnay waxa laynkaas aynu saaranahay bahalahaasi dhulka inta yimaadaan 12 mitir ba blade bay sida u dhigayaan dhulkay ka gariirinayaan laynkaas oo dhan waxa soo layn samaacada ku rakiban oo lagu aasay samaacadan oo kale bahalahaas ku aasan bahalahaas dhulka dhageysanaya dhulkay ku jiraan marka waxa weeye markay dhulka ka gariiriyaanba macluumaadkii halkaas ku shubmayaan waa la qaadayaa waa laga shubayaa macluumaadkaas la fasirayaa markaas la eegaya meesha ugu mudan ee ceel laga bilaabi karo marka bologaas waa kii bariga kanina waa kii galbeedka hadda halkaas aynu taaganahay 3,000 oo kiiloomitir ayaa la garaacayaa 12 kiiloomitir ba way istaagayaan bahalahaasi 6 ba xagga ka dambeeya saraar ka shaqeynaya imika kuwaas oo kala marka waxay shaqadaasi inoo soconaysaa ilaa 8 bilood bay inoo soconaysaa marka haddii ay macluumaad rajala noqdaan waa markaynu qodaalka bilaabaynaa aynu ogaanaynaa halka aynu qodaalka ugu mudayno ka bilaabi karno marka hadda shaqadii baa lagu tusaya say u shaqeynayso bahalaani say dhulka u garaacayaan gabagabadii madaxweynaha Soomaaliland waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer halkaas oo si ballaaran loogu soo dhaweeyay Ibrahim Faarax Macaan iyo Honkebel TV Burco.